السلام عليكم waxaan sharxi doonaa qaabka reception-ka qaybtiisa ay u shaqeyso reception-ka wuxuu qaban karaa saddex shaqo oo kala duwan in labadan qayb ee qaybta bukaan jiifka iyo bukaan socodka uu shaqeeyo sidoo kale qaybta bukaanadana maamulkooda uu ka shaqeeyo marka ugu horeyso qaybta reception-ka halkan waxaa waaye waxaa yaala reception-ka ama maalintaas dhaqaaqyadii lacagaha iyo wixii la qabtay maalintaas halkan kasoo muuqanaya weliba qaybta bukaan socodka qaybtan waxaa soo muuqanaysa visitska ama booqashooyinka maalintaas marka reception-ka ku hormari doonaa reception-ka haddaa u baahan tahay in qof cusub oo ku yimaado markaas bukaan socda aad ku shaqaysid qaybtan new charge aad ku dhufan doontaa new charge marka halkan waxay kaaga soo qaban doontaa marka ugu horeysa waxaa qasaba inaad dooratid bukaanka inaad dooratid qasaba bukaanka u shaqaynaysid tusaale nuur camal u shaqayn nuurayna u shaqayn rabnaa haddii tusaale marka aadan bukaanka heenin waxaad samayn kartaa in bukaankii qaybta bukaanada aad tagtid qaybta patientiga kadibna aad bukaanka soo aruurtid bukaanka waxaa ka diiwaan gelin doonaa keliya magaca qofka bukaanka tusaale cabdi faarax qofkan la yihahdaa cabdi faarax halkan ku qori doonaa qaybtan qofka jinsigiisa male gabdhaha female waa fahmi kartaan qaybtan qofka lambarkiisa geli doontaa qaybtan asaga tagi doonta haddaa u baahan tahayna waa ku dari kartaa oo number labaad qofka hadduu wato waayo qaybtan waxaa la yihahdaa accept qofka haddii date of birthkiisa sanadku dhashay haddaad taqaanid waxaad dooran doontaa sanadka haddii qofka da'diisa caadiga aad taqaanid oo afka aad ka weydiisay oo da'diisa uu ku sheego tusaale 24 sano 25 sano halkan aad gelin doontaa haddii marka qofka cunug yar uu yahay uu sanad gaarinna halkan aad gelin doontaa waxaa leedahay 8 months waxaa leedahay bilaha uu jira halkan ku sheegi doontaa tusaale 6 bilood 4 bilood waxaa noocaas ah marka tusaale qofkan aan dhahno 24 jir waaye waxaan kale asaga tagi doontaa haddaa u baahan tahay ku dari kartaa tusaale blood group qofkan dhiiggiisa waxaa waaye degmadu ka imaada adresskiisa noo jira ku saabsan marka waxaan muhiim maahan keliya iska buugsiisanaysaa qofka waa abuuranaysaa saa u jeedid halka waxaa ku haysanaa halkan qofka patientiga ama patient ID halkan ku haysanaa kadib waxaa imaanaynaa reception-ka qofka markaan u shaqeynaa rabnaa waa soo abuurana soo maa qof inaan u shaqeynaa rabnaa new charge ku dhufanaysaa new charge marka mar walba waxaa qasab qofka inaad dooratid marka hore qofka bukaanka marka hore inaad dooratid qasab bukaanka aad doorana marka cabdi faarax waa kana haddii marka qofka lambarkiisa ku raadin kartaa listi wuu badan karaa soo maa lambarkiisa ku raadin kartaa tusaale lambarkiisa u raadin kartaa daaweysid marka hadda cabdi faarax dooran doonaa cabdi faarax lambarkiisa waxaa waa 6 wixii wata ma soo qaban doonaa cabdi faarax wuxuu sii wataa san filaayo hoos ku jira axmed faarax wuxuu wataa cabdi faarax safra 7 waa kan cabdi faarax sama soo qofka meydkiisa ku raadin doontaa ama nambarkiisa kadib halkan service line aan lahaa service line maxay qabataa tan waa dul mari doonaa marka hore horta waxaa qasab inaad dooratid departmentiga qaybta qofkan awoodid tusaale ENT consultation ma rabtaa laboratory-ga ma rabtaa tusaale haddii qofkan ENT-ga ama qaybta ENT uu rabo uu ku yimaado qaybta ENT-ga raba ama dhagaha iyo cunaysanka qaybta dooran doontaa haddii qofka lab-ka uu rabo tusaale qof malaria qof waxa ku yimaado malaria raba test kaliya in laga qaado asoo doctor arkin raba malaria in laga qaado tifo wixii uu doono in laga qaado lab-ka dooran doontaa haddii qofka uu rabo qaybta dumarka halkan dooran doontaa qaybta consultation-ka markaas mar walba waxay ku xiran tahay hadba isbitaalka qaybaha uu ka shaqeeyo marka tusaale waxaan dooran doonaa consultation waxaan dooran doonaa ENT consultation aan dooran doonaa qof baa wuxuu rabaa tusaale in ama consultation good aad dooran consultation good markaad dooranno kadib itemkii halkan kasii dooran doontaa item waxaa la yihahdaa tusaale consultationada way badan yihiin tusaale waxaa jiri karaa general consultation inta badan ugu caansan general consultation-ka kusii dhufan doontaa kadib dhakhtarka aad dooran doontaa dhakhtarka tusaale general consultation waa soo dooratay dhakhaatiirta qaybtaas ka shaqeysa halkan kugu soo bixi doonta qofka marka hadduu dhakhtar gooni u jiro dhakhtarkiisa hadduu jiro halkan aad ka dooran doontaa haddii marka dhakhtar adiga caadi asaga dooranaysin halkan aad dooran doontaa marka qaybtan waa price-kii $2 laga rabo qofkan haddaad discount sameynaysa halkan aad discount ugu samayn kartaa sidoo kale waxaa jirta qofka qof degdeg u baahan qof degdeg shaqada ugu baahan in lagu qabto mise waa qof emergency marka qof waxaa waaye qofkan normal kadib haddaa u baahanta shey kale soo dari kartaa laakiin qofkan mar hadda dhakhtarka ugu dirno dhakhtarka qofkii waa dooranay halkan cabdi faarax dooranay waxaan leenahay meeshan lacagta meesha ku bixin leenahay halkan ku sheegi doonaa lacagta hadduu bixiyay in kale halkan ku sheegi doonaa tusaale haddii qofka lacagta haaf uu bixiyey $1 uu bixiyay leenahay $1 aan ku harsan marka hadda waxaan iska leenahay $2 uu bixiyey confirm aan leenahay confirm markaan dhahno waxaa helaynaa laba arrin oo ah marka horeysa inaan daawacno invoice-ka qofkaas inaan daawacno halkan aan ka arki karnaa invoice-ka qofkaas halkan aan ka arki karnaa daawici karnaa waxaa lacagtu bixiyay waxaa kaloo jirta qaybtan oo nambarka dhakhtarka inaad daawacdid nambarka dhakhtarka maadaama lacag uu soo bixiyey maadaama qofkii ugu horreeyay maanta aa u shaqeynayn uu yahay qofka koowaad asaan noqon doona marka waxaa loo diraa cabdi faarax waa allah qofkan qaybta general consultation-ka ujeedaa dhakhtarkan ujeedaa marka warqadii waxaa waaye qofka dhakhtarka nambarkiisa waa marka qayb qofka marka halkaas yimaado encounter-kan waxaa lagala socon karaa si guud qofkaas wax ku saabsan encounter inta badan wuxuu yaalaa qaybtan visitska waxaa ka arki kartaa marka qof walba oo maanta imaaday
sidoo kale waxaa dhigi kartaa kuwa openka i tus, waxaa dhigi kartaa kuwa closed micnaha booqashooyinka la xiray, booqashooyinka la cancel gareeyay i tus. sidoo kale maalmaha waxaa ku dooran kartaa tusaale waxaa dhigi kartaa isbuucan dhan wada tus, taariikhda doonta waa dooran kartaa. marka tusaale qofkan baa yidhi cabdi faarax open aan dhigi karnaa. cabdi faarax arki karnaa marka bilinkiisa lacagaha uu bixiyo halkaan ka arki karnaa. overview good oo qofkan ku saabsan tusaale goormuu dhashay wax noocaas aan intaan ka arki karnaa. xogtiisa intaan ka arki karnaa. bilinka lacag uu bixiyo waaye tigidyada qofkan nambarada uu goostay oo dhan halkaan ka arki karnaa. haddii qofka uu goostay labka haddii loo diray maxay ahayd dhakhtar haddii loo diray waxaan intaan ka arki doonaa oo isla maalintaas ah. notice-ka intaan ka arki doonaa waxaan intaan ka arki doonaa. marka waxaa kaloo jirta qayb labaad oo ah in qofkii tusaale waxaa rabtaa inaan qofkiisa ku yimaaday wuxuu rabaa qofkan in loo diro qaybta labka kaliya in la ajiyo rabaa labkiisu rabaa. labka marka halkaan imaan doontaa labka dooran doontaa lab tusaale qof baa ku yimaada wuxuu rabaa malaria in laga qaado. waxaa ku dhufan doontaa lab qaybtan labka ku dhufan doontaa kadib waxaa sii dooran doontaa malaria tusaale halkaan ka baari doontaa caadi qoraal caadi ku qoran doontaa malaria marka malaria ku dhufan doonaa soo jeed malaria $1 iska qaadaya. qofkan hadduu degdeg yahay iyo hadduu emergency inta ka dooran doonaa malaria tusaale waxaa kaloo rabnaa in qofkan in laga soo baaro typhoid in laga soo baaro. qaybtan mar walba qaybta departmentiga dooro waxaa doorataa ii sheeg labka kadib waxaa sii doorataa shayga qofkan laga qaaday. tusaale pricekeeda waa kan lacagta discount intaa uga samayn kartaa mid midaa discount ugu samayn kartaa kadibna confirm aleed. marka intaana confirm din waxaa ka sameyn mar walba inaa qofka bukaanka diidid aad dooratid. tusaale waxaa leenahay axmed guuleed waa qofka hadda u shaqaynayno. axmed guuleed wuxuu rabaa malaria laga soo qaado typhoid laga soo qaado lacagahooda marka inta kala qoriyay lacagta hadaan ka qaban inta ku sheegi doonaa akoonka uga qaban inta ku sheegi doonaa kadib confirm aleed. confirm markaan dhigano qofkan saa u jeedin laba shay u dalbaday waa kuwan laba shay u dalbaday halkan waxaan inta ka daawici karnaa ii sheeg maxay ahayd nambarka dhakhtarka halkaan ka daawici karnaa. nambarka ii sheeg waxaan rabaa uu ku aadi lahaa labka maadaama saf dheer la galaayo. qaybtan inta u jeedid number 2 waaye sababtoo labka qofkan u socda qofkii hadday hore ay tijaabinayna wuxuu u socday dhakhtar u socday marka waa kala shaqo. qofka dhakhtarka u socda number 2 waa qaadana qofkii kale number 2 number 3 saas ku soconaa oo maalin la qofkan hadda wuxuu u socdaa ii sheeg maxay ahayd labka u socda labka number 2 waxaa malaria qofkan laga baari doonaa. sidoo kale number 2 uu wataa qofkan wuxuu wataa warqad labaad oo ah number 2 wuxuu ku rabaa typhoid. marka laba shaqo oo kala duwan qofkan loo qabanaa hadduu sir sabtiyada aysan isugu dhaxayaan. okay labadaas loo daawici doonaa siisu ku qaadan doonaa. waxaa kaloo jirta qayb saddexaad oo ah tusaale waxaa u baahanahay waxaan maanaynaa qaybtan receptionka waxaa leenahay new charge. qayb waxaa jirta qofka tusaale bukaankii dhakhtarkii u tagay dhakhtarku wuxuu soo dalbaday daawo soo dalbaday ama ii sheeg wuxuu soo dalbaday tusaale in labka qofkan loo diro. marka qofkaas inaa inta imaato waxaa samayn kartaa inaa inta imaato qofkii bukaanka ku imaaday inaa inta imaato bukaanka aad doorato dhakhtarka maadaama uu la soo kulmay inaad doorato qaybta labka ka qaadi maxay ahayd shaygii marka uu dalbana tusaale hemoglobinkan camal laga baaraan braski wuxuu ku sheegaa inta waxaas taas ma samayn kartaa. mid labaad oo fudud samayn kartaa oo ah medical order halkan ku qoraysa. medical order maxaa laga wadaa waa number warqadda dhakhtarka ninkan warqaddu wuxuu soo siin doonaa number uu soo siin doonaa. numberka la soo siiyo halkan gelin doonta tusaale number baa la soo siiyo qofkan oo test ah numberkii halkan gelin doonta tusaale waxa la soo siiyo 12 98 wax noocan camal la soo siiyo kadib looda leedahay. haddii uu jiro marka halkan waxa kugu soo qormaa wixii la soo dalbado dhan adoona gacan ku gelin kadibna confirm aan leedahay. halkan waxaan ka arki karnaa saa u jeedid dhammaan dadka maanta soo booqday isbitaalka saa hore idinku soo sheegay maalmaha loo kala dooran karaa waxaa dhigi karnaa this week wax noocaas dhigi karnaa taariikhda halkan ka bedeli karnaa. tusaale saa u jeedid qofkan axmed guuleed waaye hal seel uu samaystay laba tikidna uu dalbaday. laba tikidka maxaa laga wadaa waa laba ii sheeg laba dalab uu ku tagay ii sheeg maxay ahayd qaybta labka. sidoo kale kan hadda tusaale qofkan haddaan furno waxaan arki karnaa bilinkiisa lacagaha laga qaado qofkan $2 lacagaha laga qaaday. qaybtan waxaan ka arki karnaa tikidyada meelaha loo diray tusaale waxaa loo diray service oo malaria laboratory loo diray markaan tifo waa kan waiting waa kuwa sugaya weli looma shaqeynin waayo haddii loo shaqeynin inta ka arki doonaa. waxaa jirta qayb kale oo ugu dambeysa admissionka waa bukaan jiifka marka waxaan samayn karnaa bukaan jiifka waxaa qaban karnaa 3 shaqo. 3 shaqo waxay tahay qof jiifa inaan ka shaqeyno qof jiifa oo isbitaalka jiifa in maxay ahayd aan dhiraahno qofkan waxbaa loo soo dalbay ama lab baa loo soo dalbay ama waxaa loo soo dalbay wax noocaas camal la yiraahdo. ama waxaan samayn karnaa inaan qof cusub jiifino ama sidoo kale waxaan samayn karnaa qof dhakhtar uu soo siixinaa bal saddexdaas ku sameeyana halkaan aan ka arki karnaa. open karta ma kuwa furan waa kuwan isbitaalka kuwa dadka jiifa halkaan ka arki karnaa. admission markaan imaano waxaan arki karnaa dadka jiifa halkaan ka arki karnaa. tusaale qofkan axmed guuleed waa jiifa xasan cabdi waa jiifa khadiijana waa jiiftaa. pending qofkan pending marka qofkan
حصاد البدي دكتور بصاد البدي والله إن لا أكسبت كريرة وصار دكتور كعسو سمية قف كان محي هاي بايتان وكسمية كده بيقولوا قف كان هل يسيب بيو هل يسيب بيو مرك أنت أكسبت كريرة كرتا وديدي كرتا مرك أكسبت على هاي أكسبت مرك على مرك أكسبت أنت نقارن عشان دونا قيبتان admission كأوش خسارة admission كان باي مادي سبالكو مادي ولا جيفرا الميدا الله كان admin markaa tiraahdo bukaankii halkan ka dooranay tusaale khadiija aan doorano khadiija aan jiifino sawirada kugu soo sheegay khadiija rabnaa inaan doorano sawirada kugu soo sheegay haddaba baahana qofka in maxay ahayd qof cusub aad soo dirno systemka patient cusub halkan ama patient inta ka soo abuurana hadduu hore u jirano inta ka dooran doonaa marka halkan waxaan ku dooranaynaa khadiija cumar dooranaynaa kadib dhakhtarkii oo jiifinaya dhakhtarka soo dalbaday in la jiifiyo halkan ka dooran doonaa dhakhtar Leila Dr. Leilisa Dr. Leila dhahnaa waxaan dhahnaa kadib admission type-ka elective miya emergency miya maternity miya ICU miya waxaana kala dooran doonaa emergency camal aan doorano kadib reasonka sababta halkan reason iska gelin doontaa qofkan waxa loo soo jiifiyay sababta halkan gelin doontaa sababta marka halkan gelisid sariirta qolka aad jiifinaysa halkan ka dooran doontaa tusaale qolka normalka maarta ama qolka VIP qolka systemka ku diiwaangashan halkan ka soo gelin tusaale waxaan inaan jiifino normalka sariiraha la jiifino halkan kuma soo qoon doono tusaale kow laba saddex hadda wajida sariirta koowaad aan naga maqan sababta waa la qof baa jiifa sariirta waxaan gelinaynaa labaad aan gelinaa qofkan admida leenaa waxaa la yidhi ujeedaa qofkan hore u jiifaan aan lahay qofkan hore u jiifay waxaan sameynaa khadiija waa ka bedelinaa waxaa leenaa marin maadaama tijaabo aan ka rabno marin aan ku celinaynaa sariirta waxaan u dooraynaa normalka waxaan ku celinaynaa sariirta labaad saaraynaa marin aadinaan dooran hadda kadib marin markaa saas u xareyno saa u jeedid qaybta admissionska waxaa kusoo darsamay qof kala kusoo darsamay oo ah marin aadin saa u jeedid marin aa kusoo darsantay waqtiga la admit gareeyay waa kana waqti la qabtay waa 29 July 2026 laba saac iyo 51 daqiiqo ala qabto weynimo marka sariirta ay jiifto iyo qolka ay jiifto sariirta ay jiifto tan qolka ay jiifto kana waa normal qolka magaca u baxsatay waay kana waxa waa sariirta ay jiifto dhakhtarka jiifi waa kana marka xogteeda aan kasi arki karnaa diiska maalmaha ay jiifto ay barsoto hadda la soo maxay la keenay qofkan soo jeedid hal maalmo u jiifa qofkan soo jeedid saddex maalmo u jiifa okay waxaan tagi doonaa marka qaybtan waxaan tagi doonaa qofkaas sii furi doona marka cancel waa la sameyn karaa qofka waa la cancel garaa haddii qalad uu dhacay cancel la sameyn karaa qofkan la jiifiyo haddii gacanta ku dhacay open aan leenahay qofka furina qofka xogtiisa oo dhameystiran aan ka karnaa halkan waxaan ka arki doonaa qofka maxay ahayd su'aal kuwa kale aan tagno kuwa kale xog fiican ka buuxda su'aal qofkan saddex maalin uu jiifay bal aan aragna maxaa ka yaala horta overview halkan ka arki doontaa qofkii xog ku saabsan su'aal sababta loo soo jiifiyay maxay ahayd sababta loo soo jiifiyay waqtiga la soo jiifiyay sariirta hadda uu jiifo qofka halkan ka arki kartaa haddii rabtid inaad sariirta u bedeshid tusaale transfer bay rabtaa qofka hadda wuxuu jiifaa tusaale wuxuu jiifaa ward normal qolka koowaad sariirta koowaad uu jiifaa tusaale waxaan rabnaa inaan VIP da geeno tusaale sariirta VIP doonana number labaad dooran doonaa sababtana waa sheegi doonaa kadibna sidaas aan qofka waxaan ku geyn doonaa sariirta labaad saa ujeedid page history waxaa ujeedaa sariirta normal oo number 1 uu marka hore jiifay waqtigan ilaa waqtigan uu jiifay waa 29 July 2:38 ilaa 29 July 2:39 inta soo jiifay qofka kalena maxay ahayd sariirtaana waqtigan loo soo wareejiyay ilaa hadda uu jiifaa marka waqti inta kala soconay mar walba saas sariiraha isku bedeli kartaa waxaa kaloo jirta billinka qofkan lacagaha waxyaabay lacag laga qaadano waa ku hanteeg soo muuqanaan waxaa jira qaybtan waxa waa sariiraha lacag sariiraha systemka maamulayo oo systemku wuxuu leeyahay qayb sariirta lacagta la soo gashan doono marka qofkan sariiraha uu jiifadan lacagooda halkan ka soo bixi doona tusaale qofkan waxa leeyahay waqtiyaas ilaa waqtiyaas tusaale 26 July ilaa 29 July waa saddex habeen wuxuu jiifay sariirtaas uu jiifay sariirtan $10 lagu dhuftaa $30 qofkan laga rabay 29 July ilaa 29 July oo caawa uu soo jiiftay marka qofku uu jiifta lacagta almost waa laga rabaa VIP uu jiifaa VIP $20 marka halkaas qaybta laga maamuli doona waxaa kaloo jirta qayb la yiraahdo new charge tusaale qofkan waxaan rabnaa in maxay ahayd dhakhtarkii baa wax soo qoray tusaale dhakhtarkii baa wax soo qoray in maxay ahayd daawo la siiyo ama lab loo diro ama test loo diro ama computer loo diro halkan aan dooran doonaa hadduu dhakhtarka wax soo qoro wax dhakhtarku soo qoro hadday jiraan halkan aan dooran doonaa hadda wax dhakhtar uu soo qoro ma jiraan kaliya waxa ku filan inaad batankan loo taawatid kadib dhakhtarku wuxuu soo qornaa inta ku soo bixi doono confirm aan leedahay lacag marka qofka oo bukaan jiifka lacag inta badan lagama qaado waxaa leedahay bartana waxaa leedahay amount beedka ever mar walba ka dhigaysaa amount beedka mar walba ever ka dhigaysaa hadhow baa lacagtiisa wixii isku dardari doonaa haddii aan rabno marka tusaale qofkan hadda halkan seeraa loo sameeyay lacagtan uu bixiyay haddii rabna statement uu daawacno qofkan lacagaha laga rabi doonaa daawacnada u baahna lacag inta laga arkaa si guud maxaan laga arki doonaa lacagaha halkan laga arki doonaa lacagaha guud
tusaale qofkan uu jiiftay patient waa kana dhakhtarkii waa kana roomkii qolku jiif waa kana waxaa ku haray sidoo kale lacagaha qofka laga rabo waa kuwan waxaa kaloo jira sidoo kale sariiraha uu jiifay ilaa hadda lacagtana la filaa estimated waa lacagtan $50 qofkan laga filaa sariiraha intuu jiifo weli macnaha lacagtaas weli qofka markii laga saaray isbitaalka unbaa lacagahaas laga qaadi doonaa waxaa jira vitalkan waxaa loogu talagalay waxaa soo qora nurseska iyo ummadaas soo qorta nurseska iyo dhakhaatiirta waxyaabaya soo qoran oo vital ah ama isheg temperatureka iyo dhererkiisa waxaas hadii laga cabiray waxaas dan inta soo gali doonaa nood iyo waxyaabaha nood laga sameeyay dhan inta kasoo muuqan doonaan inta waxaa jira orders dhakhtarka waxyaabaha uu dalbaday dhakhtarka waxyaabaha uu dalbadana halkan laga arki doonaa tusaale hadduu qofkan hadda oo jidaa kan lab test uu dalbaday dhakhtarka lab testigan hore lagu sameeyey qofkan waxaa loo dalbay sidoo kale medication daawa loo dalbay daawada halkan laga arki doonaa waxaa jirta sidoo kale qaybta labka waa resultyada labka ka soo baxay marka qofka receptionka wuxuu samayn karaa in discharge uu dhaho qofkan tusaale qofkan hadda isbitaalka ku jiifaa Soomaa waxaa ka rabnaa tusaale lacagtan uu bixiyay hadda bid waa tan uu bixiyay lacagtan baa ka rabnaa lacagtan $50 ka rabnaa waxaan leenahay discharge qofkan iska saara leenahay isbitaalka saar isbitaalka inta laga saaray marka waxaa ku taagan qofkan lacagan oo maxay ahayd sariirta uu jiifaa $50 haddii discount uu jiro marka inta uu samayn karaa tusaale waxaan leenahay qofkan $10 ka reeb waxaa ka qaadaa lacagtiis kale ka qaada lacagta ka qaadaa $40 ka qaada kadib marka qofkii saas ku saarnay saar baa ka saarnay lacagta markaan u bixin rabnaa lacagta markaan u bixin rabno pay leen halkan pay ku fanayna kadib lacagta ka qabanayna record payment leen qofkaas saas uu nagu dhaafay lacagta waa ka qabanay maxay ahayd isbitaalkan laga saaray IBD ga ku laabano sawjid qofkii saddex xabba ka bixin history qaybta history ku biira waa kanaan sawjid Khadija waa ka saarnay isbitaalka lacagtii waxna waa laga qaatay discharge qofka waa la saaray